xiisadii gobolka geeska Afrika mar kale ayay dib u bilaabatay. Dowladda Masarna 24 saac ay ugu dambeeyay waxay waday dhaqdhaqaaqyadii ugu adkaa ee gobolka. Dowladda Ethiopia ayaa laga xiray albaab kale oo muhiim u ahaa, taasi oo ku saabsanaa arrinta gobolka iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynaysay. dagaaladii diblomaasiyadda oo aad u qaboobay waayadii ugu dambeeyay hadda dib ayay u soo laba kacleeyeen. Abdulfatah al-Sisi oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Masar ayaa gaaray magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti isagoo kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. booqashada waxaa lagu tilmaamay mid aad xasaasi u ahayd. 5 qodob oo muhiimana waa la kala saxiixday. qodobadaasi waxa ugu muhiimsan waxa kamid ah badda cas iyo baabul mandab oo la sheegay in labada dhinac ay iska kaashanayaan amnigeeda. halkan waa meesha ay ku dhimanaysa Ethiopia iyo waliba hoggaanka dawladda uu ka yahay rajiimka Addis Ababa fadhiya ee Abiy Ahmed. haddaba 5 qodob ee la saxiixay maxaa kamid ah wada hadalka miiska la soo saaray maxaa ka jira Soomaaliya inay qayb ka ahayd maxaase lagu tilmaami karaa warbixinta labada dhinac ay baahiyeen ee ku saabsan war-saxaafadeedka warbaahinta dalka Masar sidee arrintan u faaqidaysaa. barnaamijka caawa qodobkaas ayaan si gaar ah ugu dul istaagi doonaa xilli isbeddello waaweyn ay dunida ka dhacayaan iyo gobolka geeska Afrika oo markan si gaar ah marxalad xasaasi ah u sii galaya. soo dhawaada ayaan idin leeyahay saaxiibayaal si aad xogtaas iyo warar kale aad u heshaan kusoo biira baraheena bulshada Facebook iyo YouTube labadaba. aad baad u mahadsantihiin. General Abdulfatah al-Sisi dagaal adag oo diblomaasiyadeed ayuu kula jiraa dalka Ethiopia. meelaha ugu badan ee saameynta dagaalkaasi uu ka socdana waa dalalka ku hareeraysan dowladda Ethiopia. inta badan dagaalada siyaasadeedka gobolkan ayaa waxaa ka dhex muuqan jiray dalalka Eritrea iyo Soomaaliya, laakiin markan waxaa xulufada Masar ku biiraya dowladda Djibouti uu hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geelle. General Sisi ayaa booqasho 24 saac qaadatay oo lagu tilmaamay mid shaqo waxa uu ku tagay dalka jamhuuriyadda Djibouti. Ismaaciil Cumar Geelle isaga ayaa kulamo dheer qaatay waxana ilaa iyo 5 heshiis kala saxiixday qaar kamid ah wasaaradaha kala duwan ee Masar iyo sidoo kale dowladda Djibouti. labada dhinac ayaa isla soo qaaday xaaladda ka taagan badda cas sidii amnigeeda kor loogu qaadi lahaa. Djibouti iyo Masarna ay iska kaashan lahaayeen arrintan. qodobkan dowladda Masar waxa ay uga gol leedahay in Ethiopia laga ilaaliyo biyaha badda cas ee cagta soo saarto oo taas haddii ay dhacdo saameyn ku yeelanaya mustaqbalka nololeed dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalkaasi Masar ee uu hogaamiyo generaalka gaamuray ee Abdulfatah al-Sisi. dowladda Ethiopia in muddaaba waxay naawilaysaa ciidamadeeda badda inay helaan meel ay badda cas lug ka saaraan, taasoo xitaa dhalisay in dowladaha qaar ay si weyn u kala fogaadaan dowladda Ethiopia. meelaha ugu badan ee khilaafka uu hore uga dhacay waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay Addis Ababa si weyn isku qabteen muddo dheerna la xallin waayay khilaafka diblomaasiyadeed oo labadan dal ee deriska ah soo kala dhaxgalay. ugu dambeyntiina dowladda Turkiga ayaa ku guuleysatay in dhinacyadu ay is aqbalaan oo is hor fadhiistaan, inkastoo aan si rasmi ah Ethiopia iyo Soomaaliya aanay u wada gaarin heshiis buuxa oo ku saabsan arrimaha badda. haddana Ethiopia waxay u muuqataa xiisadda dhinaca Soomaaliya inay qaboojisay. iyadoo taa laga duulayo dowladda Masar ayaa markan warbaahinta qaar waxay leeyihiin waxa ay dareentay galdaloolooyin dhinaca Djibouti uga iman karaya. taasina waxa muddo dheer faaqidaya sirdoonka waddanka Masar ee arrimaha dibadda qaabilsan. ugu dambeyntiina waxa laga shaqeeyay sidii xiriirka dowladaha Qaahira iyo Djibouti la isugu soo dhaweyn lahaa. iyadoo taa laga duulayo xiriir dhinaca diblomaasiyadda oo dhinacyada kala duwan ay isticmaaleen, waxaa lagu guuleystay in madaxweynaha dalka Masar General Sisi wax ka badan 20 saacadood inuu ku sugnaado gudaha dalkaasi Djibouti. kulamada marka laga yimaado waxa la kala saxiixday heshiisyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinaca isgaarsiinta, warbaahinta, boostada, dhalinyarada iyo isboortiga iyo waliba qodobo kale oo muhiim u ah. warbixin uu bartiisa Facebook soo saaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu yiri waxaan isla soo qaadnay inaynu ka doodno arrimaha gobolka geeska Afrika gaar ahaan
xiisadaha ka taagan Suudaan iyo Soomaaliya. Arrinta badda casna waxay ahayd mid miiska taallay oo markasta aad looga hadlayay iyo marinka ciriiriga ah ee Baabulmandab kaasi oo ganacsiga adduunka uu hadda aad u maro. Masar nolosheedu waxay ku tiirsan tahay laba dhinac. Mid waa biyaha Nile oo Itoobiya ay biyo xireen ka samaysatay webigaasi isla markaana Masar saameyn weyn ku yeeshay wax soo saarka dalagga beeraha. Arrintan ayaa waxay dhalisay in labada dal ay ku sigtaan inay gacanta iskula tagaan. Hase yeeshee dagaalka diblomaasiyadda ayaa markasta miiska saarnaa. Arrinta kale ee Masar ay ku nooshahay waa badda cas iyo waliba marinka halkaasi istiraatiijiga oo isticmaasho oo ay haddii Itoobiya ay badda cas ciidamadeeda soo galaan ay noqonayso ishii kale oo Masar ay ku noolayd in ay Itoobiya istaagi karayso taasina ay sababi karayso in xaaladda ay gacan ka hadal degdeg isugu bedesho. Labadan dal waxay ka midaysan yihiin arrin Itoobiya saameynteeda ku leh. Dowladda Djibouti waxa ka soo dega inta badan waxyaabaha dalka Itoobiya ay soo dhoofsadaan isla markaana waxa ka baxa waxyaabaha dunida kale Itoobiya ay u waariday oo dalkeeda ay ka soo saarto. Waxay isticmaashaa xeebaha Djibouti. Haddii marka ciidamada Itoobiya ay helaan goob kale oo ka istiraatiijisan Djibouti oo ay isticmaalaan, tani waxay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalaha dalka Djibouti ee uu hogaamiye madaxweyne Geele. Halka Masarna haddii ay badda cagaha ciidamada Itoobiya ay soo galiyaan ay ku yeelanayso saameyn xoog leh. Safiirka dowladda Masar u qaabilsan Djibouti oo la hadlay telefishinka Al-Qaahira ayaa waxa uu yiri waayadii ugu dambeysaba Masar waxa ay si aad indhaha ugu haysay saddex wadan oo istiraatiiji ah. Waxaa ka mid ah dalka Eritrea, Djibouti iyo Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. xiriirka saddexdaas wadan nagala dhaxeeya hadda waxa uu marayaa ayuu yiri meeshii ugu sareysay in Djibouti ay xulufada geeska ku soo biirtana waa arrin kale oo saameynteeda leh. su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa Djibouti xiriirka Masar ay hadda la yeelatay ma uga faa'iideysan kartaa xalinta khilaafka kala dhaxeeya dowladda Eritrea iyo muranka ka taagan aaga Dumeera. arrintan lama oga in miiska la soo wada saaray haddana waa saxaafadeedka labada dhinac ay banaanka keeneen iyo xogta warbaahinta lala wadaagay midna kuma jirto. haddiise Djibouti ay qayb ka noqonayso arrimaha hadda ka taagan gobolka geeska Afrika iyo xulufada Masar, Eritrea iyo Soomaaliya waxa lagu qasban yahay in arrintaasi la xaliyo oo sida Djibouti ay wax u doonayso ay wax walba noqdaan. laakiin hogaamiyaha muddada dheer joogay ee kalitaliska Eritrea Siyaasa Fawarqe waxa la isweydiinayaa arrintan saameyn ma ku yeelan karaa oo ma ka tanaasuli karaa dooda Dumeera ee in badan arrinteeda xal loo waayay iyo aagga labada dhinac ay horay ugu dagaalameen. waa su'aalaha ugu badan ee ka iman kara dooda iyo arrinta Masar ay rabto hadda inay suuq geyso oo la xiriira siyaasadda amuraha dibadda iyo xulufada gobolka geeska. Itoobiya hadda waxay u muuqanaysaa mar kale inay galayso go'doon siyaasi ah oo dhinaca diblomaasiyadda la xiriira, laakiin lama oga mowqifka Muqdisho ay ka qaadan karayso dabayshan cusub ee mar kale gobolka geeska Afrika ka bilaabatay. maxay idin la tahay arrintan? soo dhawaada khiyaarteena la socota waa qaybta koowaad ee caawa ee kastoo aad joogtaan ku soo biira baraheena bulshada ee Facebook iyo YouTube si aad ula socotaan taxliilinta wararka gobolka iyo caalamka intaba. nabadgelyada.